kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka maanta warbaahinta ogaal qodobada wararkeena waxaa ugu waaweyn ciidamo kamid ah kuwa booliiska ayaa lagu bedelay ciidamadii asluubta kontaroolada gudaha magaalada muqdisho xilli cabasho xoogan ay ka timaaday kontaroolada ciidamada asluubta. dowladdu waxay guulo waaweyn ka sheegatay dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda qayb kamid ah iyo waliba sidoo kale ururka Al-Shabaab. golaha kacdoonka gobolka Hiiraan waxay digniino u dirayaan ra'iisul wasaare Roble xilli ay soo baxayso arrimo ku aadan ismarwaaga ka taagan heshiisyo la rabay in laga gaaro heshiiska dhismaha maamul goboleedka Hirshabelle. natiijooyinka Somaliland ee doorashada golaha wakiilada ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta guud ahaan daawadayaal isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada guud ahaanba wararka warbaahinta ogaal miidiya daawadayaal waa maalinimo Jimcaha 4 bisha Juun 2021. ciidamo kamid ah kuwa booliiska ayaa lagu wareejiyay baraha kontaroolada gudaha magaalada muqdisho ee hore askar ka tirsan ciidanka asluubta uga howlgali jireen. barahan kontaroolada ee ku yaala agagaarka dekada muqdisho wadada hormarta maxkamadda gobolka xabsiga dhexe iyo kawaanka malayga ayaa waxaa haatan wixii ka dambeeya ka howlgali doona ciidamo booliis ah. sababta looga qaadayay barahan ciidanka asluubta ayaa kadib markii ay ku lug yeesheen isku dhacyo dhowr ah oo ugu dambeysay dhacdadii maalin hore ka dhacday agagaarka kawaanka malayga oo lagu rasaasinayay kolonyo uu la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ka qaadista ciidamada asluubta ee barahan kontaroolka ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli uu taliyaha ciidamada asluubta Generaal Mahad uu sheegay in ciidamadii rasaasta ku riday kolonyada uu saarnaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ay ku saxnaayeen maadaama rasaas lagu soo riday iyaga, taas oo la sheegayo inay si aad uga xumaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. balse arrintan oo iyadu loo daayay go'aankeeda ra'iisul wasaare Roble ayaa arrinta soo dhexgalay isagoon ugu dambeyntii qaatay go'aan ku aadan in guud ahaanba ciidamadani laga wareejiyo ka howlgalista kontaroolada qayb ee magaaladaas. afhayeenka ciidanka xoogga dalka Korneyl Cali Xaashi ayaa sheegay inay ku dileen in ka badan 70 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaasna ciidamo kasoo guulo ay kasoo hoyeen la taaban karo dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. afhayeenka ciidanka xoogga dalka ayaana Xuseen Al-Shabaab markii laga soo xoreeyay tuulooyin dhowr ay bilaabeen inay warta jibaale gabaad ka dhigtaan halkaasna jab xoogan loogu geystay isagoon intaasi ku darin ciidamada ay si buuxda gacanta ugu hayaan goobihii lagu dagaalamay. Korneyl Cali Xaashi ayaana sheegay in warbaahinta la soo wadaagi doonaan khasaaraha dhabta ay ciidamadu geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab maadaama ay ciidamadu ka howlan yihiin howlgal amni lagu xaqiijinayo sida uu yiri. hase yeeshee dagaalkii ka dhacay warta jibaal ayaa khasaare kasoo gaaray ciidanka xoogga dalka waxaana kamid ah askartii ku dhintay taliyihii guutada lixaad ee ciidamada Gorgor Maxamed Cabdiwaaxid oo isagu ahaa taliyo tababar xoogan ka haystay dowladda dalka Jabuuti iyo weliba sidoo kale Turkiga. hogaamiyaha golaha kacdoonka Hiiraan Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa waxa uu ka hadlay dadaalada uu ra'iisul wasaaruhu Soomaaliya ku doonayo in lagu xalliyo tabashada reer Hiiraan ay ka qabaan maamulka dhismaha Hirshabelle. Generaal Xuud ayaana sheegay inuu soo dhaweynayo dadaalada wado ra'iisul wasaare Roble isagoona sheegay inuu aad uga xun yahay in shirkii wadatashiga qaranka marnaba lagu soo hadal qaadin Hiiraan iyadoona gedo looga hadlay buu yiri. hogaamiyaha Generaal Xuud ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu uga digayo inuu beledweyne yimaado isagoo uu la socdo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen. waxa uuna hadalka hogaamiyaha kacdoonka Hiiraan imaanaya xilli dhawaan xukuumadda Roble ay ku dhawaaqday inay xalinayaan tabashada reer Hiiraan ay ka qabaan maamulka Hirshabelle si loo helo Hirshabelle loo dhan yahay. waxaana magaalada Jowhar hadda ku sugan ra'iisul wasaare Roble oo isagu u kurgalaya xaaladda guud ee deegaanada maamul goboleedka Hirshabelle inkastoo ay qayb ka tahay socdaalkiisa sida aanu xogta ku helino dadaalo uu ku doonayo in uu dib arinta ku aadan xalinta khilaafaadka ee reer Hiiraan uu ku soo gabagabay. waxayna u badan tahay in ra'iisul wasaaraha uu tagi doono magaalada Beledweyne halkaas oo isagoo la socdo madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle ay la kulmi doonaan sidaan xogta ku heleyno cid kasta oo tabasho ka qabta dhismaha maamul goboleedka Hirshabelle oo isagu hadda hana qaaday. waxaana laga yaabaa sidoo kale marka uu magaalada Beledweyne tago ra'iisul wasaaruhu inuu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada
iyo weliba sidoo kale siyaasiyiinta gobolka. dhanka kalena guddiga doorashooyinka heer gobol ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee gobolada Togdheer iyo Awdal ee deegaanada Somaliland. natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer xisbiga wadani ayaa hogaaminaya oo helay 7 xildhibaan halka xisbiyada kulmiye u cid ay kala heleen 4. natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada ee gobolka Awdal xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa helay xildhibaano isku mid ah 5 halka u cid uu isagu helay 3 xildhibaan oo kaliya. ilaa hadda waxaa lagu dhawaaqin oo la sheegin natiijada golaha baarlamaanka iyo deegaanka ee gobolada Maroodi Jeex iyo Saaxil iyo natiijada doorashada golayaasha deegaanka ee degmada Gabiley. deegaanada Somaliland waxaa weli ka soconaya tirinta codadka ee ay shacabka dhiibteen Isniintii la soo dhaafay, taas ay ku soo dooranayaan golaha deegaanka iyo weliba kuwa kale ee iyagu matalay. ugu dambeyn daawadayaal bixitaanka Netanyahu ee dalka Israa'iil ra'iisul wasaaraha ayaa waxay noqonaysaa siyaasad waji cusub u yeeli karta bari dhexe, iyadoo uu bedeli doono nin kale oo isagu aad uga soo horjeeda oo lagu magacaabo Naftali Bennett. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii xisbiyada labada dhinac ay sameysteen isbahaysi ay talada xukunka ugula wareegayaan ra'iisul wasaarihii dalkaas Israa'iil muddada soo hogaaminayay, kaasoo ugu dambeyntii ku fashilmay doorashadii ka dhacday dalkaas Israa'iil sanadihii ugu dambeeyay uu ka soo hoyo guulo aqlabiyad cod ah oo isagu uu ku sii maamuli karo dalka Israa'iil. ayaana waxay bariga dhexe ka wajahaysaa cadaadisyo xoogan oo ka mid tahay dagaalka iyo weliba gumaadka ay ku hayso dadka reer Falastiin oo ugu dambeysay xasuuqii dhacay bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay, iyadoo taasi uu aad u sababeystay baa leeyahay ra'iisul wasaaruhu in uu meesha ka baxo. wadamada carabta qaarkood ayaana waxay indhaha ku wada hayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee xukunka kala wareegi doona Netanyahu, kaasoo isagu laga yaabo inuu la soo baxo go'aano culus oo ka gedisan kuwii hore uu haystay ra'iisul wasaarihii dalkaas Israa'iil Benjamin Netanyahu. waxaana ay u badan tahay in ra'iisul wasaarahani uu sameyn doono waxaa lagu sheegay xabad joojino degdeg ah iyo weliba sidoo kale inuu heshiisyo dhinaca nabadda ah la gaaro qeybaha kala duwan ee dadka reer Falastiin. intaas ayaanu daawadayaal kusoo gabagabeynayna warkeena tan iyo qeybaha dambe. waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.